madaxweynaha guddoomiyaha xukuumadda dhammaan shacabka uga wadacelinayna sidii sharafta leh ee u soo dhaweeyeen iyo guddigeena iyo wafdigeena la socday guddoomiyaheena kaleeto eegakii waa noo fadhiya isagana halka oo ka wadsaya isagana runtii haddii si madaxweynaha sheego weeye waa waxaan u geedi socodka habka doorashooyinka sida u socdaan mar kasta waxaa weeye runtii waxaa yani wanaag ah mar kastoo aan imaado wax ka badan ka duwan madaxweynaha guddoomiyaha xukuumadda dhammaan shacabka uga wadacelinayna sidii sharafta leh ee u soo dhaweeyeen iyo guddigeena iyo wafdigeena la socday guddoomiyaheena kaleeto eegakii waa noo fadhiya isagana halka oo ka wadsaya isagana runtii haddii si madaxweynaha sheego weeye waa waxaan u geedi socodka habka doorashooyinka sida u socdaan mar kasta waxaa weeye runtii waxaa yani wanaag ah mar kastoo aan imaado wax ka badan ka duwan ka wanaagsan waxay hore u jiray inay ka socdaan meesha tan puntlandna runtii waa bogaadinaya madaxweyne cabdiweli iyo xukuumaddiisa yani waxqabadka iyo runtii habka xasiloonida ay ugu soo dawaaleen iyo maaragtay habkay uga socdaan waa runtii waa wax lagu farqo dalkeeda usoo qorantay marka suu sheega madaxweynaha waxaa joogaya inta ayaabo meelo kale waa tegi doona haddii la yihahdo waxaan rabaa inaan u kuurgalna sida wax u socdaan dee waqti doorashooyin aan lagu jiraa soomaalida dhan doorashooyinkan waxa weye waxay noqon doontaa yani doorashooyin taariikha adigu 47 sano taqriiban ayaa ugu dambeysay dalka kale in doorasho noocaan oo kaleeta ka dhacdo walow aan hal qof halqadna gaarin laakiin haddana waxay noqonaysaa doorasho bedasho qualitiga dadka siday usoo baxayaan iyo dalka sida uu representative waxay dhahaan yani ama matalaad buuxda ay ku yeelan doonaan deegaanada iyo dowlgoboleeda dalka o dhan runtii aad iyo aad ayaan ugu rajoogenahay inay wax badan hagaagi doonaan puntlandna sidaan hadda ay wax u wadaanba waxay la tahay runtii inay noqon doontaa wax lagu dasto oo tusaale u noqda dalka intiisa kaleeto habka ay ukala socdaan marka waa mahadsantihiin gadaal dalban haddii la yihahdo waxay kaleeto kaga soo sheegi doonaa wanaagsan waxay hore u jiray inay ka socdaan meesha tan puntlandna runtii waa bogaadinaya madaxweyne cabdiweli iyo xukuumaddiisa yani waxqabadka iyo runtii habka xasiloonida ay ugu soo dawaaleen iyo maaragtay habkay uga socdaan waa runtii waa wax lagu farqo dalkeeda usoo qorantay marka suu sheega madaxweynaha waxaa joogaya inta ayaabo meelo kale waa tegi doona haddii la yihahdo waxaan rabaa inaan u kuurgalna sida wax u socdaan dee waqti doorashooyin aan lagu jiraa soomaalida dhan doorashooyinkan waxa weye waxay noqon doontaa yani doorashooyin taariikha adigu 47 sano taqriiban ayaa ugu dambeysay dalka kale in doorasho noocaan oo kaleeta ka dhacdo walow aan hal qof halqadna gaarin laakiin haddana waxay noqonaysaa doorasho bedasho qualitiga dadka siday usoo baxayaan iyo dalka sida uu representative waxay dhahaan yani ama matalaad buuxda ay ku yeelan doonaan deegaanada iyo dowlgoboleeda dalka o dhan runtii aad iyo aad ayaan ugu rajoogenahay inay wax badan hagaagi doonaan puntlandna sidaan hadda ay wax u wadaanba waxay la tahay runtii inay noqon doontaa wax lagu dasto oo tusaale u noqda dalka intiisa kaleeto habka ay ukala socdaan marka waa mahadsantihiin gadaal dalban haddii la yihahdo waxay kaleeto kaga soo sheegi doonaa